هذه أدب مع سنتين سراكيل وعن كم علينا سيدات وسط قيب كشين كلن كان ومعني سوها إسبرشو يوضع شقين وحنا ما علينا مركو ورثة تريا قلت هذا جلال مسعود قلت هذا شيء تمنات غيبت كل أتناد لما سراكيشة وحن كرر ربعنا ما عليه رجالها تلك الصومالي مدن حسن على خير مضح حكومة الشيخ مشاكر معلم محمود أيوة كشقي أرنتان كلن كان تهابقري أفرت كبيرة لصودا في إن سيدان وحود عن آدو فرح سنة سيدان حتى وحود صادان وعن هل كان عن أبو قاعدين يتراكيش شقوا عن أو مرتاي وناكسين أحمر الدونتو هاتنا ماشي مريسو ملفي عن إذا كسر في كيسي هوشين ملحي نمريسا هذا ما سنتين وبالله توفيق. ووران waxaan rabaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala mahad celiyo noo suuri galiyay kulankan qiimaha badan sharafta badan yawaankiisuna oo ahaa isbarasho iyo soo dhaweyn aan ku soo dhaweynaynay taliyaha qaybta 12aad taliya qooje iskuna barnaayeen saraakiishiisii kala tirsaneed qaybta 12aad wuxuu nagu soo gabagabay si fiican waxaan naga soo baxay qodobo koow in wada shaqayn dhab ah la yeesho labo in cadawga si wada jir ah looga hortago saddex in awaamirta si toos ah loo kala qaato taliyaha qaybta 12aadna aan ka amar qaadano haddaan nahay saraakiisha qaybta 12aad anoo ah taliyaha guutada 15aad ee qaybta 12aad waxaan si toos ah ula shaqaynaynaa uga amar qaadanaynaa taliyaha qaybta 12aad waxa xusid gooniya mudan in saraakiishu dhammaantood ay u diyaar garowsan yihiin inay amniga sugaan cadawga ka hortagaan dowladda federaalka mas'uuliyiinteeda sare iyo qaybaheeda kala duwan ay soo dhaweeyaan si aan kala har lahayn waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ugu horeyn ra'iisul wasaaraha qaranka Soomaaliya mudane xasan cali khayre sheekh maxamed shaakir gudoomiyaha madaxa xukuumadda galmudug doctor sheekh shaakir cali xasan macallin maxamed sheekh xasan gudoomiyaha guud ee sunna wal jamaa halgankii iyo juhdigii ay ku bixiyeen ay ku wada jir ah in maanta ay meeshan soo gaarto midnimada noocan ah in qarankii Soomaaliya uu hana qaado meeshaan in lagu midoobo macnaheedu wuxuu la mid yahay in qarankii Soomaaliya uu kor u kacay sababtoo gobolada dhexe waa laf dhabartii Soomaaliya marka waxaan mar kale u mahad celinayaa mas'uuliyiintaas ugu horeeyay wasaaraha Sheekh Maxamed Shaakir iyo Maxamed Sheekh Xasan muddo fara badan ay ku bixiyeen sidii loo midoobi lahaa kala xirxirka iyo dhibaatadana looga kala macnaha looga badbaadi lahaa cadawga Soomaaliya dhabarka looga jebi lahaa marka waad ku mahadsantihiin waliba wasaaraha Soomaaliya waxaan si qaas ugu samaalcinayaa in uu muddo 2 bilood ku dhawaad ah oo halkan u fadhiyay shaqadii guud oo Soomaaliyana uu hayay qayb ka mid ah halkan uu muddo u hayay una dul qaatay kuna soo gaarsiiyay in maantay qaybihii dowladda kala duwan ay si toos ah ugu shaqeeyaan marka dhammaantood mahadsantihiin waxaad ku mahadsantihiin sida sharafta leh oo aad shirkan maantay qada sharafkan oo noo sameeyay taliyaha qaybta 12aad mudane qooje aad wada qayb gasheen u soo ajiibteen una tusteen taageerada aad u haydaan iyo wada shaqeynta